kulankan ayaa ahaa mid taageeri duco loogu muujinayay xildhibaan Siciid Maxamed Cali oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo senator Leila Nuur Maax ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankaasina waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka, waxgaradka, dhalinyarada, haweenka iyo waaska beesha ay matalaan. ugu horreyn waxaa kulankaasi si wada jir uga hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta iyo dhalinyarada kulankaasi kasoo qayb galay, iyagoona taageeriyo duco u muujiyay xildhibaanada 4 sano ee soo socota dowladda ku matali doonta. xildhibaanka iyo senatorba inaan u sheego beesha waxa ka maqan inaan u sheego ayaa jeclahay. haddii aan kasoo qaado koonfur galbeed wax xubin aan ku leenahay ma laha. beelihii annagana la mid ahaa waxay ku leeyihiin 3 laba xildhibaan ay leeyihiin. annaga hal xildhibaan ayaan ku leenahay. wasiirna kuma lihi, agaasimana kuma lihi, wax xubin oo aan ku leenahay ma laha. xubnahaas waxaa la rabaa in aad soo dhicisiin. markii la fiirinayo waxyaabaha qaar taqwiimiga waxyaabaha la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa imisa rag kugu jirta, imisa dumar kugu jirta. sababtoo ah markii loo baahdo dhanka dumar inaan dumar haysano, marka aan u baahan dhanka ragna inaan rag haysano. laba xildhibaan rag iyo dumar noo matala haddana gaar ahaan beesheena sacad. taas waxay samayn doontaa wax badan ka bedeli doontaa qiyamka ay beesha ku jirto siiba dhalinyarada, maadaama aan taagan dhalinyarada. marka hore inaan u duceyno xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya nagu matala doono 4 sano ee soo socota. waxaan rabaa 100% inaan halkaan anoo ku hadlaayo beesha iyo siyaasiyiinta inaan taageerno xildhibaanadeena oo kala ah xildhibaan Dr. Siciid Maxamed Cali iyo xildhibaan senator Leila Nuur Maax. sidoo kale munaasabadaasi waxaa ka hadlay ugaaska beesha ugaas Axmed ugaas Siid Cali, isagoona u mahad celiyay xildhibaanada labada aqal, isla mar ahaantan wuxuu kula dardaarmay inay mar walba isha ku hayaan deegaan doorashadooda. waa u duceynayna Ilaahay hala garab galo xilka culus ee ummadda u hayaan Soomaali guud ahaan, gaar ahaan jubbooyinka iyo dadka deegaankaba, beesha Biimaali gaar ahaan Sacadba. waxaan rabnaa inay kaalinkooda kolley uun dad waayo arag ah oo siyaasi ah oo muddo badan kusoo dhex jira siyaasadda ayay kulligood ahaayeen. senatarada Leila Nuur Maaxe ugu yaraan waxaan u malaynaa xilkan ka sokow inay 10 sano ka badan ee siyaasadda ku dhex jirtay, qaababka u socotay waa ka warqabtaa, dalkana kama bixin. marka waxaan rajaynaynaa inay tahay qof waayo arag ah. iyo Siciid xildhibaanka markii ay seelaan isgarab istaagaanna in ay macnaha kolley uun qaban doonaan howl adag. laakiin bulshada waxaa laga rabaa taageero kaliya lagama rabee, waxaa laga rabaa qorshe inay la imaadaan, qorsho waxqabad leh. gabagabadii munaasabadaasi waxaa si wada jira uga hadlay xildhibaan Siciid Maxamed iyo sidoo kale senator Leila Nuur Maax. howsha xildhibaanku waa masalaada ugu horeysa 1 2 masalaadaas uu qabanayo beeshiisa, masalaadaas uu qabanayo beelweynta, masalaadaas uu qabanayo Soomaali weyn. intaba xildhibaanku waa loogu fadhiyaa, waana waxa idinka aad maxaan ku leeyahay hadda ka dhawaajinayseen ay ka mid yihiin. waxaan codsanaynaa annagana intaa idinka codsateen in la mid ah. waxaan codsanaynaa inaad idinka wadajir iyo midnimo aad muujisaan. waxaan idinka ballan qaadaynaa inaanu idin dhageysano. waxaan u malaynayaa ummadda in badan haddii ay is dhageysan lahayd oo maxay ahayd qofba qofka kale uu dhageysan lahaa, waddanku inuu intaan kasii fiicnaan lahaa. marka waxaan rajaynaynaa inaan dhageysiga badino. annagu madaxdayadii baanu nahay, waxaanu idin maxay ahayd qaabilsanahay inaanu dowladda dhexe aanu iyo dowlad goboleedyadaba wixii aad ku leedihiin aan idin raadino. dowladdaanu idin dhaxaynaa. marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala in si dhab ah aad noola shaqaysiin, annaguna aan idinkula shaqayno. maxamed cabdinaasir ayaan leh, Universal TV, Muqdisho.